بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله مقالكينا waxaynu ku eegi doonaa hal qiso oo aad u qosol badan markaad dhinac ka eegtidna xikmad aad u weyn ku jirto waxaa jiray nin faqiir ah ninka faqiirka ahi waxa uu dhalay wiil waxa ayna ku noolaayeen guri aad u yar wax hanti abana waxay haysteen dameer maalin maalimaha ka mid ah ayaa waxa ku adkaatay xaaladda ilaa ay gaadheen in aanay heli karin lacag ay wax ku iibsadaan maalintaas markay xaaladdu halkaas maraysay ayaa waxa uu go'aansaday ninkii in uu iibiyo oo uu iibgeeyo dameerka si uu wiilkiisa cunto iyo wax uu afka geliyo ugu keeno kadib ninkii iyo wiilkiisii waa israaceen waxayna kaxeeyeen dameerkii waxayna u jeedsadeen halkaas iyo suuqa si ay u soo iibiyaan dameerka wiilkii iyo aabihii dameerkii waxay ka mareen xagga dambe dameerkiina isagoo cidi wadin ayaa iska horreysiiyeen iyagoo weli sidii daba socda dameerka ayaa waxa dariiqa ay kula kulmeen gabdhihii markay arkeen ninka iyo wiilkiisa dameerka daba socda aad ayay u qosleen iyagoo codka kor u qaadaya waxa ay yidhaahdeen waa maxay ninkan iyo wiilkiisa yar ee axmaqiinta ah lugahooda ayay ku socdaan dameerkana waa ay iska daayeen yacni dameerka may fuulaan inta ay lugeynayaan markii uu ninkii maqlay hadalka gabdhaha ayaa waxa uu ku yidhi wiilkiisii wiilkaygiiyow orod dameerka fuul aniguna waan ku daba soconayaa wiilkii yaraa sidii ayuu ku fuulay dameerka markii ay waxoogaa sii socdeen ayaa haddana waxa ay jidka kula kulmeen nimankii dariiqa socday aad ayay u yaabeen markay arkeen wiilka yar oo dameerka fuushan iyo aabihii oo lugeynaya waxaana ay yidhaahdeen waa maxay kan yar ee waalid caaqa ah dameerka ayuu fuulay aabihiina waa uu lugeynayaa markii uu maqlay wiilkii yaraa hadalka ay leeyihiin nimankaas waa uu ka soo daadegay dameerkii waxa uuna ku yidhi aabihii aabbo orod adigu fuul dameerka anigu waan kaa dambaynayaa oo waan ku daba soconayaa sidii ayuu wiilka yar aabihii ku fuulay dameerkii haddana markii ay waxoogaa sii socdeen ayaa waxa ay jidka kula kulmeen dhowr haween ah haweenkii markii ay arkeen odayga dameerka fuushan wiilkiisuna daba socdo ayaa waxa ay yidhaahdeen iyaga oo kor u hadlaya ninkan maxaa ka siya sidee buu fuulayaa dameerka wiilkiisa yarna keli uu uga tegayaa maxaa ka khaldan ninkan miyuu in yar oo naxariisna lahayn markii uu maqlay ninkii odayga ahaa haweenka hadalkooga ayaa waxa uu u yeedhay wiilkiisii waxa uuna ku yidhi kaali wiilkaygiiyo ila soo fuul dameerka odaygii iyo wiilkiisii waxa ay wada fuuleen dameerka odaygii iyo wiilkiisu waxa ay socdaanba markii ay u dhowaadeen suuqa ayaa waxa jidka kula kulmay nin waxaanuu ku yidhi ma waxaad fuulaysaan idinka oo laba ah dameerka miyaad in yar oo naxariis lahayn ood ka nahayn dameerka markii ay ninkii iyo wiilkiisii yaraa ay maqleen hadalka ninka waa ay ka degeen dameerkii intaas kadib aabbihii ayaa ku taliyey wiilkiisana ku yidhi wiilkaygiiyow waan inaan qaadnaa dameerka oon kor u qaadnaa wiilkii yaraa iyo aabbihii dameerkii waxay ka xidheen lugaha waxayna ku duuduubeen xadhig aad u adag markii ay qaadeen dameerkii ayaa dhammaan dad goobta ku sugnaa qosol isku dareen oo aad u qosleen intaas kadib wiilkii iyo aabihii oo sidii dameerka u sida ayaa wax ka soo horbaxay looxaas wuxuu u dul yaalay meel biyo fadhiyaan kadib waa ay ku silbadeen odaygii iyo wiilkiisii iyo dameerkiina halkaa ayay ku kufeen hantina waxa ay lahaayeen dameerkiina halkaas ayay ku waayeen inahaas ayaynu kusoo koobaynaa qisadeennan daawade haddii aad magac u hayso qisadan commentiga nugula wadaag.